السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha ku xidhan janalkeena janalka xikmad tube ee youtube kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sida aad ka aragtaanba ciwaanka waanooyin iyo nasiixooyin laga hayo qof nolosha hore u soo maray ama cimrigiisii la dhihi karo uu soo dhammaystay maadaamuu yahay qof gaadhay da'da 80 sano. Runtii waa waanooyin ka cibro qaadasho mudan marka aad dhageysato daawatidna ku anfici doona insha Allah. laakiin muuqaalkeena intaan u guda gelin fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar videogana like saar. aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay la joogaaga daawasho wacan muuqaalka oo dhammaystiran. runtiina waxaan idinka mahad celinayaa muuqaalkii hore ee dhiirigelinta ahaa sidaad uga falceliseen laagta oo maraysa 12 laag iyo viewskoo gaadhay wax ka badan 30. runtii aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin. muuqaalkana waxaan rajeynayaa inuu heli doono falcelin ka fiican falcelintii hore. aan u guda galna muuqaalkeena oo dhammaystiran. waanada koowaad, weligaa ha ka dhigin shakhsi inuu kuu dooro waxyaabaha aad ka rabtid nolosha. tusaale yaroo kaaban, haddaad u baahan tahay kabo, cidnaha ka sugin inay kuu doorto kabahaaga, waayo qofkanaad weydiinaysid inuu kabaha kuu dooro wuxuu kuu dooni doonaa waxa uu isagu u arko inay fiican tahay, laakiin kuu doori maayo waxa uu isagu u arko inay adiga kuu fiican yihiin. isku day inaad hadalkayga fahanto. qofka kuu dooraya kabahaas ma aha qof dooraya waxaad adigu rabto, ee waa qof dooraya waxa uu isagu u arka inuu fiican yahay. maalin maalmaha ka mid ah anigoo isla socono wiilaan asxaab nahay ayaa waxa uu igu yidhi kaale walaal kabaan soo iibsanayaa. meel waxaan galnay kabaha lagu iibiyo, marka kabihii ayuu doortay. wuxuu yidhi ka waran kabahan haddaan doorto. run ahaantii anu waxaan ku yidhi kabahan waa caadi haddaad iibsanaysid, laakiin ani ima qancin. wuu iska bedelay kaba kale ayuu doortay. waxaan ku yidhi kuwan dooro, kuwana saxdiya. kabihii markuu qaatay, inkastoo aan intaan meesha joognay ku celcelinayay ka fiirsa kabahan, laga yaabaa hadhow inaad tiraahdo ima qancin, waayo isku dooq inaan ahayn baa suuragala. may dhib male buu yidhi, haddaad adu doortay waa sax. sidaa darteed waan nimid. markaan soo noqonay maalmo kadib ayaan arkay isagoo kabihii ka calaacalaya, lehna niyo kaba waxaad ii soo doortay run ahaantii liita. aniguna waxaan xasuusiyey imisaan ku lahaa ka fiirsa kabaha, laga yaabaa inayna ku qancin waxa anigii qanciya. marka saa daraaddeed weligaa qofna ha ka sugin in uu kuu dooro waxa aad ka rabtid nolosha. tusaalaha kabaha ha u fahmin inaan ka hadlayno kaba keliya, ee wax walba oo noloshaada ku saabsan cidnaha ka sugin inay kuu doorto. talada labaad, qofka fursad sii, tu labaadna sii, laakiin weligaa fursad saddexaad ha siinin. sheekh mustafe muxaadaraan ka dhegaysanayay xafidahullahu waracaahu waxa uu yidhi, ninkii shalay ku khaa'imay maantana ku khaa'imay, berina inaad talada u dhiibatid waa doqonnimo, waayo waxaad ogtahay inuu maanta ku khaa'imay shalayna ku khaa'imay. marka beritoole maxaad sugaysaa? marka qofka fursad sii, tu labaad sii, laakiin ha isku dayin inaad tu saddexaad siisid. qaacidada noloshaada ku dhaq. qofka fursad koowaad sii, tu labaad sii, laakiin weligaa tu saddexaad ha siinin, waayo ta saddexaad waxay ka macno tahay labadii hore waxa uu sameeyey inuu samayn doono. talada saddexaad, weligaa iska ilaali inaad la tartanto qof aan haysan wax u khasaare. maxaa laga wadaa? yacni weligaa ha la tartamin ama iska ilaali intaad iska ilaalin karsid qof aan haysan wax u khasaaro, waayo wax uu waayayo ma jiro. wax walba laba gooraba adiga ayaa khasaarada ku soo gaadhaysa. iska ilaali weligaa, kana fogow qof aan haysan wax uu khasaaro. taa waxay macno la noqon kartaa qof aan haysan wax uu khasaaro ama aan danaynayn inuu waxaan khasaaro iyo inuuna khasaarin. hadduu waaya haddii kale aad iskugu mid tahay, iska ilaali dadkaas oo kale in aad la tartanto ama aad agtooda ka dhowaatid. inaad fahantaan rajaynaya taladaasna. weligaa iska ilaali inaad la tartanto qof wax uu waayo iyo wax kale aan kala jeclayn ama aan haysanba wax uu khasaarayo. si walbaba labada dhinacba guuldarre iyo guulla'aanba waa adiga dushaada. laba gooraba adiga ayaa guuldarraysanaya. talada afraad, noqo weligaa qof tawaaduc badan, waayo horey ayaa loo soo sameeyey inta aadan dhalan wax badan oo qof mutawaadican ah. fikrad kalena la noolow oo ah ha iska dhaadhicinin inaad tahay qof dhammaystiran, qof aan la khaa'imi karin, qof aan la xumayn karin, qof aan been loo sheegi karin. qaacidadaas iyo bahubahaadaas maskaxdaada ka saar. waxaad tahay qof been loo sheegi karo, qof la khiyaami karo, qof laga maarmi karo. marka ha sarraysiinin, mutawaadic noqo. talada kale
waxa uu yidhi dooro noloshaada, dooro qofka aad nolosha la wadaagaysid si takhasus leh iyo weliba si kafiirsi leh u dooro, waayo qofkaasi waxa uu mas-uul ka noqonayaa 90% farxaddaada ama farxad la'aantaada iyo hooggaaga iyo jabkaaga. qofka aad nolosha la dooratay inaad la qaybsatid si takhasus leh iyo si xeel dheeri ah iyo weliba si maskax leh u dooro, waayo 90% mas-uul ayuu ka yahay farxaddaada iyo weliba murugadaada. talada kale waxa uu yidhi weligaa cidna fursad ha u kaydinin aad wax ugu sheegto. qof ayaad rabtaa inaad wax u sheegto, ha dhihin beritoola u sheegi doonaa, ee islamarkaaba u sheeg wakhtiga koobaadeed hesho ugu sheegay fursad ah. weligaa qofna fursad ha u kaydinin aad wax ugu sheegi kartid, ha dhihin beritoola ayaan u sheegi doonaa, ee islamarkaaba u sheeg. qof ayaad xumaan ku aragtay, islamarkaaba kala hadal, ha dhihin beritoola ayaan u sheegi doonaa, cidna ma oga in beri ilaahay ku gaarsiin doono. qof ayaad wanaag ku aragtay, uga hambalye ku dheh wax wanaagsan ayaad haysaa, ilaahay ha ku barakeeyo, ha la sugin wakhti kale. runtii talada kale ugu dambaysa waxa weeyaan weligaa ha ku seexanin niyad xumo ama adigoo niyadda ku haya inaad wax xun samaysid. laga yaabaa hurdadaas inay tahay tii kuugu dambaysay. weligaa ha seexanin adoo niyadda ku haya marka aad soo kacdo waxaad samayn doontaa wax xun, waxaas ayaan samayn doonaa, inta hurdada iga dhiman ayuunbaa iga dhiman, ee hurdada marka aan ka soo kaco waxaan samayn doonaa shaygaas iyo shaygaas. weligaa ha dhihin, oo niyadda waxaad seexataa adigoo dadka oo dhan iska cafiyey, qalbigaaguna saafi yahay. muuqaalka ma jecli inuu sii dheeraado, kan raalihaada haddaan soo celcelinaya hadallada qaar waxay iga ahayd in la fahmo oo keliya. muuqaalka haddaad ku cusub tahay like saar, channelkana haddaad ku cusub tahay subscribe saar, iskuna day in asxaabtaada la wadaagtid, commentigana igu reeb wixii talo iyo tusaale ah. waad ku mahadsantahay. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.